arrimahan dhacay khaasatan Safiya Tusmo waxay ahayd arrin argagax ah oo qof walba oo Soomaaliya oo dhiig leh uu aad uga naxo. Arrintan ma ahan arrin rag Soomaaliya oo dhan ay sameeyaan, qaar baa sameeya, qaar yar baa sameeya, kuwaas ayaa ummadda oo dhibaateeya. Marka waxaan rabaa in aan niyuuska ugu dambeeya idin sheego. waxaan kaloo hadda la hadlay telefoonka ka dhigay Safiyo waxay ii sheegtay fariintan idin soo gaarsiiyo. Arrintan iyo ninka ka dambeeyey oo aan soo sheegnay oo aan soo gelinay baraha bulshada waxaa galay xaajada iyo in la soo bandhigo iyo arrintan in la soo qabto suldaanka guud ee beelaha Soomaaliya ayaa galay. Suldaan Daa'uud ayaan filay haddana qaldana magaciisa la yiraahdo. Marka waxay tiri waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba adduunka ka joogaan dadkii taageeray dalkii dibadda in arrintan ay gebi ahaan iminka iska dhaafaan oo yiraahdaan suldaankan loo deynayaa, suldaanka xilka isa saaray isagaa wax walba samaynaya. Marka dadkan YouTube qabaailaadka ku caayaya, dadka kale ku caayaya in maaragtay arrintaas ay joojiyaan gebi ahaan social media waana mahadsantii bay idin tiri. Marka iminka waxaan tusayaa si aan u xaqiijino horta Snapchat-kii wixii hawaday ka maqan yihiin waxaan idin xaqiijinayaa in security-gaan u adkaynay in wax walba aan u sameeyay dhanka iyo Facebook-geedina iminka gacantaan u gelinayno. Marka waxaan idinla wadaagayaa Safiya Facebook-geeda waa kan iyadoo gacanteeda ku jira wax annaga baaritaankii iyo wax video iyo wax iyada leedahay oo lagu dhibaataynayo maahina inteeda kale security bay u tahay. waa la adkeeyey email-adii waan u bedelnay solo groups. waxa ku xiga oo aan rabaa inaan sheego waxay tahay shakhsigan Cabdi Ciise Ayuuni in la yiraahdo maraya reer Qaahire way yaqaanaan. ninkan ayaa ah ninka gabadh dhibaateeyey. ninkan ayaa ah ninka baadi goobka lagu hayo la raadinayo. ninkan ayaa ah keligii kulay noqon maayo rag badanna mustaqbalku way samayn doonaan wayna soo sameeyeen ragga Soomaaliyeed ee wanaagsan. ninka dhibaateeyey waa ninkan dhalinyarada ah. gabadhan aan waxba ka galabsan dhibaateeyey waa kan. marka qofkii arka meel uu joogo uu isu maray uu ka soo galay Facebook-ga hadday aan lahayd Diridhaba, Jigjiga, Hargeysa iyo meeshan location-kan daroor la yiraahdo dhulkan si fiican uma kala aqaano. laakiin markuu ku leeyahay Diridhaba iyo Hargeysa specific man IP address-ka geolocation wuxuu ku tusayaa inta u dhow. mararka qaarkood wuxuu ku tusayaa meel dila la yiraahdo oo fiber optic uu maro inta u dhaxaysa meeshan Gabiley ilaa Arabsiyo meelahan ku siina. marka wuu la wareegayay ama qof buu dhiibayay si dadku u maran habaabiyo. laakiin hadduu la yiraahdo waxa xaqiiq ah in shakhsigan la soo qaban doono sawirkiisa aad aragteen hadda mar labaad ku celin doono in shakhsigan Cabdi Ciise la yiraahdo la soo qaban doono. waxaana dadka ku boorinayaa ninkan hadday arkaan inaysan far saarin. Somaliland sharci baa ka jira, kilkishana sharci baa ka jira. haddii la qabto bilayska gacanta loo saaro. laakiin if you take law into your hand adiga mas'uuliyad asaad ka darnaanaysa, asaad ka sii xumaanaysa. ninkan ilaa maxkamad laga saaro, caddayn la soo hordhigo, caddayn badan baa laga haya, la soo hordhigo oo la xukumo qof far ku taaban kara male. waa in lawyer loo qabtaa, waa in maxkamadda la geeyaa, waa inuu abiil ama raxfaan u qaataa. marka sharciga waa inuu sareeyo mar walba si gabadha ay cadaalad u hesho. laakiin ilaahay ballankii waxa ah hadduu la yiraahdo qosolka wuxuu u dambayn doonaa Safiyo hadda saanka arkay muruga ma hayso, dhib ma hayso, walwal bahar ma hayso. walwalka iyo walbahaarka wuxuu ku dambeeyaa eedaysanaha ayuu ku dambeeyaa. Cabdi Ciise weli waa eedaysane ma ahan guilty. marka af Soomaaliga aan saxno guilty ma ahan oo dambiile ma dhihi karno waa eedaysane. ilaa maxkamad laga soo saaro caddayna waa taallaa. indhahaygaan saaray waan arkay waxyaalo badan suldaamada iyo dadka ugaasida ma kala aqaan iyada ii soo sheegtay isaga gacanta kula jira. dadkan YouTube-ka iyo maaragtay meelaha mar dambana waxaan kula taliyay inaysan interview dambe aanay dhiibin oo qolooyinkan oo YouTube-ka iyo waxyaalahan aysan dhiibin. marka fariinta ugu dambaysa waa intan Facebook-geeda waad arkaysaan iyadaa iskale way ku jirtaa. home-keeda haddaan tagno waa kan waxeeda dhan secure bay u yihiin. telefoonkeeda ugu xiran yahay waa tan. waxaana xaqiiqa guusha inay raacday. idinkana waa mahadsantihiin intii la idiin soo sheegay hadda ka qaata. waatan gabadhan Soomaaliyeed quruxda badan hooyada ah karaamada sharafta leh sharafteeda waxba ma dhicin dhibaatana ma soo gaarin. waa mahadsantihiin. waxaa u baahan tahay Safiya marka healing time u baahan tahay waqti aad ku caafimaad u baahan tahay. waqti aad ku caafimaad ayaad abaaya u baahan tahay. hadda uma baahnid in nabarahaaga adiga oo madaxa lagaaga istaagay lagugu gabood falay lagugu xadgudbay lagugu jeesjeesay la isku dayay qalbigaaga in la burburiyo. hadda uma baahnid
cid si qaldan waraysi kaaga qaata hadda waxaa u baahan tahay cid ku garab istaagta cid ku tira walaal maxaa kuu daran maxaan kuu qabtaa cid howlaha hoose ee guriga kaa qabata cid moral support ku siisa cid cidlada kaa ilaalisa si aadan kaligaa maaragtay aadan u murugoon cid ku madadaalisa ah abaayo u baahan tahay waxaa kalood u baahan tahay waqti aad ku dawowdo dhaqanka iyo dumarka dagaalka ka dhexeeya dhaqanka markaan leeyahana dhaqanka suubanaa kuma jiro Soomaalida ee dhaqan xumada dhaqan laga dhigtay iyo dumarka dagaalka dhexeeya wax hadda soo afjarmaayo oo si sahal ku soo dhamaanayna abaayo ma aha annaga oo dhan waxaa waajibaana saaran qof kasta oo damiir leh inuu moral support ku siiyo inuu qalbiyan ku taageero Safiyaay أنا هذا اسمه أراك مرة أسكت سكنة مرة أتيمت لندن لكن ما أنا أسأرك anyway دب ملين كنا لو أسأرك يا وأنا جعلها إن شاء الله أنا أسأركنا واحد ربع مركا إنان moral support باي وباهنتهاي واحد وباهنتهاي ما أنت العقو ما باهند وحكى له ما باهند لكن واحد وباهنتهاي إن قلبك لقى تاجر أو قلبيا ليس كجرب تاجر إن آت waraysigaagii kuguma ceebinaayo laakiin aad uga calool xumoodo waana dhamaysan kari waaye inaan wada daawado kii ugu dambeeya waaye oo aad bixisay sababtu waxay tahay kow as a journalist anaan cidna eedayn TV-gana eedayn gabadha yartahay waraysiga qaadana aan eedayn it was not professional waraysi oo qof dhib soo gaara qaab loo waraysta maanu ahayn waxa waaye hadalka waa xalaal hadaan la xumeeyna anagu xumeyn kama wada hadalkan TV-ga wax ka sheegi maayo gabadha wariyaha wax ka sheegi maayo laakiin professionally ma ahayn qaab loo qaado waraysi qof dhib soo gaaray loo qaado ma ahayn dadka dhibka soo gaara wariyaasha TV-yada iyo ragga iskale waxaan u soo jeedinayaa in ay shaqaalahooda qaar kamida ku tababaraan marka la wareysanayo qofka dhiban oo victimka ah looma wareysto sida qof caadi ah ama fanaan meesha soo fariistay ama saxufi meesha soo maaragtay qof ganacsadaha meesha soo fariistay ama siyaasi meesha soo fariistay looma wareysto wareysiga dadka victimska ama dhibanaha waxay leeyihiin qaab loo qaado marka horta taas waxa laga rabaa dadka iskale warbaahinta inay sameeyaan aniga wareysigaas qaabka loo qaado kuma farxin adigana walaashay maadaama fariintan ayna cid kale ku socon TV-na ku socon cid kalena ku socon adiga ku soo diraya maanta aniga oo jooga wadanka United Kingdom boqortooyooyinka midoobay magaalada caasimadda ah labaad ee Birmingham ayaan kaaga soo diraya gurigaygan kaaga soo diraya balkoonkaygan kaaga soo diraya waana xilli duurkii la tukada casirkii la sugayo abaayo waxaan kugu waaninayaa waraysi dambe inaadan bixin waraysi dambe inaadan warbaahinsiin ayaan kugu waaninayaa waanadaana waa tu Soomaalinimo waa tu walaalnimo waa tu suxufinimo because suxufi aan ahay waa aqaan waraysiga sida qaldan loo qaadayo iyo mid kale waa kala ka saa adigu dhowr level ayaan kugu siinayaa waanada marka uma baahnid waqti YouTuber oo ka faa'iideysto waqti TV oo ka faa'iideysto waxa ogaataa markasta Safiya Tusma tahay markasta news maker tahay dadku waa news maker ee qof aan news maker ahayna kala yihiin dadka mar walba waxa tahay qof news maker because waxa tahay fanaanadeeni waxa tahay abwaanadeeni waxa tahay gabadheena sharafta lahayd waxa tahay gabar maxay ahto mar walba asturan weligay aniga ma aragtay timahaaga qaawan sawiradaada meelaha la faafinayo saddex kamid ah la soo diray kuwi kale xataa ma aanan aqbalin saddexda la soo dirana hal maraatima qaawneed labada kalena waxaad xirnayd qamaaraad xirnayd marka wax weyn oo laga sheego aniga ma arko okay waxaan rabaa inaan kuu sheego abaayo canda iyo cawra qof walbay ku taallaa walaashay anaga cawraa igu taal ilmahaaga cawraa ku taal adoogaa bartaa cawraa ku tiil ninka cawraa ku taal halka aroosi doonto cawraa ku taal halka hadda aad soo aroosto saas kuu kala cawraa ku taal I'm sorry abaa marka qaar luuqada adagan Soomaalida kula hadlaa sababtu waxa ay tahayna way astaahilaan in luuqada adag kala hadlo marka horta canda waa cando cawra waa cawra cawradaada kaliya ceeb maaha
laakiin waxaad ku kala duwan tihiin adiga tiisa iyo caarkiisa ma duubin adow taada duuba intaasoo ku kala duwan tihiin adigu ma duubina asaa taada duuba dhaqanka cawrada gabadhana ceeb ka dhigaya candhada ninkana aan ceeb ka dhigaynin ayaaba iswarsi rababa kaasaaba u baahanba in hoos laysula qisho oo hoos laysu warsado marka aan rabno inaan ku garab istaagnana annaga qudheenno maaha inaan ragga ku xadgudubno ma raba inaan ragga ku xadgudubno ragga waana dhaleen aabbayaasheen waay waa guursaynaa hore usoo guursanna ilmay naga dhaleen waana soo qaawiyeen ay koo qaawan unkana waa soo qaawinno waa aragnay wax kasta xaawaa wixii xunba xaawaale xaalka maaha ya marka candha waa candho cawrana waa cawro hadday adiga kugu taalo taada oo adoon ogeyn iyo meel kuugu rakibay kaamera kulligood saasay u wada hanjabaan qofaan loogu hanjabin male midaan xabad kugu darsanaa wuxuu ku leeyahay gurigaagaan kaamera ku xiraa musqushaadaan kaamera ku xiraa qolkaaga jeefkaan kaamera ku xiraa waa la yidhi anaga idoo life oo la yidhi haayaaba xabana iguma darso ismana aroosin geelay eriganu isma daaqo soomaalidu waa wiil iyo abtigii waa wiil ood wadaag xataa mane lamadeen cidood xataa ood wadaag maaha soomaaliya cida u kala baxda walaasha runaan kuu sheegaa aniga waxba yaan laguugu hanjabin marka because waxa kaliya ku kala duwantihiin waxaaba adiga taada u duubay adiga candhadaada u duubay because cawradaada u duubay adigu ma tiiso ma duubin haddaad ku tala gasho adiguba waa duubi karta tiiso waana soo dhigi karta markuu soo dhigad soo dhigi karta laakiin anigu gabarna ku waanin maayo inay dambi gasho because crime waayo dambi waayo qof cawradiis duub maxaa keenaya ta kala safiya waxaan rabaa inaan kuu sheego sidaan sheekada u fahamna ninkaan ninaa la tumanaysa maaha ninkaan marka waxaa kaa duubaay hoteeloo kaaga duubay si sheekada aniga aan ku fahmo haddaan qalad fahmo abaayo iska kee cafi macaan waa qaldamay karaa walaashay ninaad qabtowna ahaa oo isqabtiin oo ahay ninaad isqabtiin oo ahaay meesha kaliya annaga ku aaminno cawradeenna waa ninkana qaba dadda ninka xaaba la isku qabaaba labada cawraa ku shirkowdeen idinka dee miyaan run la sheegayn horta hadalka haddii laga warwareegsado waa dhib ma ogtahay labada cawro leeba lagu shirkoobo wax lagu shirkoobo oo dhanba oo nikaaxa loo qeyo oo shiiqo loo soo wacay oo xoolaha loo qala haddii la qalay oo aroos loo dhigta haddii la dhigay oo loo soo labista haddii loo soo labista oo video la iskaga duuba haddii la iskaga duubay soo in labada cawro inay shirkoobaan oo la sharciyeeyo shirkadooda soomaa okay marka cawradee aan ku shirkowna hadduu tayda duubo what is so special ya alla nagu ma qabto laakiin wallaahi ta adiga kugu dhaxda hadday ugu dhici lahaa aniga waaba qosli lahaa baasaa ka soco lahay wax biyuus dhinac kalahaa ii daran aniga laakiin cawradaydaa duubta sabiishaydaa duubtay anaa qaawanaa duubta tus tuugaha maa meeqa digri si tuugaana waa ku duubta because kuma arkayno because fulayaa tahay because you are a coward fulay ay ahaa tahay oo ibliis ah oo alla ya rasuulka furtaa tahay laakiin anigaba mugastaada waa duubi lahay laakiin ma duubinoo damba ka malihiba caarkaaga aniga caarkaaga inuu hawl kale ii qabtaan rabaa maahana hawsha kalena waa ii qabtay daad khalaas waa dhammaatay soo aniga danka malihi duubistiisa waxaan ku falaa aniga ma fareeman inta gashtaan dhulka aan dhigaha qolka jiifka ama qolka fadhiga ya anaaba waxa kula yihiin bay adiga tayda duubaa dee meel kala kac wallaahi isukumaba xumeeyeene maha rabta ku keenaan dheelaha inaan kaa naaganimo fiicanaha maaha laakiin waxaa waaye dhibka marka uu ku gaaro waa la fakaraa okay dabadaydana waxaad ku aragta waxay ahayd ninka jidka socda arki ma karo halka ila heesa arki ma karo halka kalena ma arki karo halka dariskaygaana ma arko adiga waxaad ku aragtay geediyo xunka dhinacyada xiiran waxaad ku aragtay waxa waaye inaan ku guursaday inaan ku hamooday in nikaax kaa dhex maray soo nikaax xalaal haddoo kaa dhex maray labadeena cawro waaba la isku nikaaxba labada cawraaba la isku nikaax ma labada gafuraa la isku nikaax waxa la iskugu nikaaxa waa labada cawro labada cawro darteedaan ba isku nikaaxsanay anigadu ku shirkooba bahalkan haddaa kugu ooli lahayn aniguna oona igu ooli lahayn usumaba nimaadneeba hooyadaawas so what is so special what is so special exactly I'm sorry inaan luuqada adag ku hadla mararka qaarkood oo aan ka baxo laynka professionalismka laakiin way kugu qasbayaan dhaqankooda kugu qasbay what is so special marka waa kala tagna haddaan kala tagna ka bacdi guurkii calafki waa dhammaaday khalaas get over it yeah get over it
diintana dayuusay ka dhigta kaasoo kale dayuusay ka dhigta iska daa in uu inta ku sawiro bannaanku soo dhiga ee gogashiina kama sheekay karo. Listen, sister and sisters, wax idin sheego, Soomaaliya, Somaliland, Puntland, Jubbaland, whatever magaciinu yahay, meel kasta oo dhulkeena oo aad joogtid, internetka meeshaas lagama laha, internetka reer galbeedka iskale. That means waxa waa everybody oo gudaha waddanka jooga oo ku qaldama shuruucda waxbaa laga qaban karaa. adiga haddaan toos wax looga qaban karin shirkadda xunta ah internetka siisaa wax laga qabahaa shirkaddan usugay wax ka qabahe. marka waxaa ogaataa waxaa u ahay halkan emergency ambulance marka arka waa dhax marka waxaa waaye internetka waxaa laga leeyahay dibadda reer galbeedka laga leeyahay dalalka aad joognaa laga leeyahay internet lagama laha Soomaaliya gudaheeda iyo dalalka Soomaaliya dhexdeeda. marka kan isku haysto because Soomaaliya jooga so he can do everything. No, he cannot do anything. saaxiib waxba ma samayn karaysa because internetka aad ku faafinayso waxa iskala reer galbeed annagana reer galbeedkii dhinac ka ah annaga ayaa ka shaqaysana annaga canshuurta la bixino annaga ayaa xaq iyo xuquuq ku leh. Soomaalidu sharciga ma ilaaliso iskumana ilaaliso iyadu sharciga ma dhowrto iskumana ilaaliso. Safiya arrintaada waxyaabaha kale oo aan ka dareema oo aan rabin inaan ku fogaado waxa waaye arrin qabyaaladeedna meesha waa ku jirtaa. dadka inta damiir kala ma ahane waxaan arkaa naaga aad u malaysanayno iyadu sabiil ku oolan oo ninka ka daba baraanburaayo because isku reereeyeen. abaayo waxaas u bixin qabyaalad annaga maalinta aan aqliyaysano dagaalka oo dhalinyarada ahayno 20 iyo dhowr sano jirno oo dagaalku dhacay ilaa hadda nala ku haya qabyaalad waxna looga qaadana male. qabyaaladna waxaasoo kala socome dambiilana qabyaalad u xeymee ee Soomaalidu ha barato in accountability is xisaabtan iyo in sharciga xaqiisa ismarisa ha barato. adiga ku soo haray adiga mar kale ku ugu celinaa please don't give another interview to anybody. ma YouTube la tira ma waxa tira cidna ha siin interview kale right now waxa u baahan tahay inaad nasato in aad dawowdo in qaab kale lagu support gareeyo u baahan tahay. abaayo ha bixinin waraysi kale. This is Amina Musa Weheliya Cadow oo UK ka soo hadlayso gabar walaasha Soomaaliyada oo toos fariintan ku soo gaarsiiso. ma u baahnad xilliga dad badan ku garab taagan abaayo ha arkin afarta xabo xumaanta ninka ku taageeraysa waxba ha arkin annaga ka badan intana kala ka badan nin xalaal kugu qabana Safiyaan nin iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo nin xalaal idin ku qabo wuxuu faafiyo kurba idin ku hayna xalaal qabida ayaa asaga ka dhigayso inuu cawradaada asturo hadduu asturi waayana he is a fucking bastard. adiga ayaa damale qof blackmail kuga sameey kara ama rikaata qof ku haysa kara adduunka ma jiro. adduunka hal koombo oo ku wada jira hal koombo dunida ku wada jirta ninku qaba hadduu ku duubo ruuyaba kugu hayninba. maxaa yeelay contractiga aad gasheenaba waxaaba inaa labada cawro isku asturtiin isna isticmaalaan labadiina cawro inay isticmaalaan contractiga aad gasheen. that is the contract aad gasheen. hadduu contractiga dhinaciisa ka jabiyo oo adiga cawradaadii oo xalaasha ku adeegsada ku isticmaala oo bannaanka soo dhigo asaa qaladkaas iskale. so wax ceeb ah ma jiraan waxaa ceeb ah falka isagu ku dhaqmaa ceeba ee adiga waxaaga oo inta cawradaada ku duubay si qarsoodi adiga oo aan ogeyn waa meeqa dambi adoon ogeyn oo ku duubay naagtiisa oo duubay xaaskiisa oo ahayn inuu duubo diintii uu ku xadgudbay dhaqankii uu ku xadgudbay dar allana waa kaas hadda la doondoono waayaa ka xaxaabay unu karnaba raadaynaba wallahi anu ku inta joogna xataa waa raadaynaa. waxa kale oo dambiga lamida oo aan rabaa inay ogaadaan cid kasta cid dibad joogta ama guda joogta oo ninka wixiisa sii faafisay you are criminal too. qof kasta oo sii faafisay ninka wixiisa is a criminal. waxaana ogaataan this is a cyberbullying. cyberbullying toddoba bilood 8 bilood ka hor ka hadalkiisa bilaabay oo qof iiga horeysaba aanay jirin oo social media ka hadasha kii le waaye oo koofi kale loo gasho